السلام عليكم أخيارتنا شرفت لي وحان مقالك إذا كل وذاقية ميد كميدة قريها حافظة أمل فيليج المقالة ذا قروي وانا قرقة فيلا بيه طبقة T+1 كان كوبا لح قولات شيفا لبا فردية قيبتي سافيسكا تكذي يلح سولي imikana gurigi baynu gudaha u sii galaynaa aan isla aragno ina keena ugu horeyn waxaad arkaysaan koridorkii oo si cajiiba loo qurxiyay qolalkana waxaan ka bilaabaynaa midkan oo kii martida ah ama waayeelka aan jaranjarooyinka kala fuuli karaynin oo suuligiisii gudaha ku leh kan kalena waa fadhi aad u weyn kana kooban qaybtii fadhiga iyo qaybtii qadadaba imikana waxaynu ka baxaynaa sliding doorka si aynu isula aragno banaankan iyo beertan aadka u quruxda badan iyo sidoo kale surface roomkii iyo suuligiisii iyo meeshii dharka lagu dhaqanayay qolkan qofka degan wuxuu heli doonaa daaqad weyn oo neecaw badan uga soo gali doonto waliba waxaa intaa u sii dheer dhirtan quruxda badan ee xaggan dambe ugu beeran haatana waxaynu isla arkaynaa jikadii oo space fiican loo diyaariyay oo waxaan ku xidhnay dhammaan qalabkii muhiimka u ahaa sidoo kale storagekeedii waa kan kan kalena waa albaabkii jikada oo banaanka u furnaa oo isticmaali karaan shaqaalaha iyo dhammaan xaafadda intooda kale haddana waxaynu raaci doonaa jaranjaradaas aynu isla soo aragno qolalka kor ku yaala ee loogu talagalay qoyska ina keena markaan kor imaano ugu horeyn waxaan arkaynaa fadhigan oo aad u kooban oo loogu talagalay familka ina keena halkan aan isla aragnay waa balkonigii oo aad ka helaysid view aad cajiib u ah haddana waxaynu isla eegaynaa master roomkii oo space weyn haysta sidoo kalena wuxuu leeyahay balcony view aad u cajiiba leh teeda kale waxaan meesha ka maqnay in qolkii closetka walking closetkii oo qolka master roomka lahaa
sidoo kale tani waa suuligii oo qolka master bedroom-ka ahaa oo ka kooban jacuzzi-gii iyo shower-kiisii. ina keena aynu isla aadno qolalka caruurta. kani waa suuligii banaanka oo isla wadaagayeen qolka wiilasha iyo fadhiga. kana waa hal qolo kale oo suuligiisii gudaha ku leh. halkan waa balcony ay caruurta ka heli karaan view aad cajiib ah oo u furan qolka hablaha iyo qolka wiilasha labadaba. ugu dambeyn aynu isla aragno qolkii inamada. ina keena aynu u baxno rooftop-ka si aynu isla soo aragno dhammaan xaafadda iyo magaalada Garowe. dusha sare markaad joogto waxaad helaysaa neecaw aad u macaan oo kasoo dhacaysa dhanka iyo buuraha. waana space aad u weyn ood ku caawin kartid adoo dusha ka daawanaya magaaladii Garowe oo iftiimaysa.